wada ogtihiin baaca mushtarada gobolka Minnesota ayaa mararka qaarkood waxa ka dhex muuqda baaca mushtaro ay leeyihiin ajnabigaasi oo mararka qaarkood Soomaalida ugu soo dhawaada siyaabo kala duwan haday noqon lahayd inay markaasi isku diin ku abtirsadaan ama haday noqon lahayd inay markaasi wadankooda u dhow yahay wadankii ay markaasi ka yimaadeen daba Holyland oo hodel leh runtii maqaayad weyn ama markaasi grocery weyn ayaa waxa uu ku leeyahay Central Avenue iyo waliba Midwest-ga qaybtiisa kale hadaba waxa jiray baahi weyn in loo qabay dadka degan koonfurta magaalada Minneapolis oo mararka qaarkood ay xilib xalaal ku aadi jireen dhinaca Centralka hadaba Holyland macaamiisha dadka kale waxa uu ogeysiinaya in markan ay fureen xilib xalaal oo ku yaala Chicago iyo Lake Street hadii markaasi aadi jirtay Centralka fadlan halkaasi aadin ee adigoo fudud oo shoppingka weyn ee Midwest-ga buildingka cusub ku dhex mashaaxaya ayaad hadhow toolana aad soo istaagi kartaa hilibka aad doonaysidna aad ka qaadan kartaa fadlan yaana la mooganin Holyland store-ku ku leeyahay Midwest-ga isagoo ku leh Mid Central-ka ayaa kan Holyland hadana lagu soo kordhiyay qayb markaasi loogu talagalay hilibka haday noqon lahayd hilib ari ama beef haday noqon lahayd ama markaasi hilibka noocaad ugu jecesha noqoto beer ama killa noqoto noocaad oo loogu yeeray waxaan leenahay mooganin Holyland